waxaan ku suganahay xarunta qaramada midoobay ee ku taalla magaalada New York oo maalintii labaad uu ka soconayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay oo ah shirkii 17aad ee lagu qabto xaruntan qaramada midoobay ee magaalada New York shirka labadii maalin ee la soo dhaafay shalay oo isniin ahayd iyo maanta oo Talaado ah waxa si weyn looga hadlayay arrinta ku saabsan qaxootiga caalamka ee soo taraya waxaa halkan ila jooga gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka Axmed Daahir Cabdikariin Nuur Axmed Daahir kulankan waad ka qayb galaysay shalay maantana waad ku sugnayd dawladda Soomaaliya waad matalaysaa iyo qaxootigeedii si weyn baa qaxootiga looga hadlayay shalay iyo maanta waxyaabihii laga hadlayay ee ku saabsanaa horta qaxootigan in uu noqdo ajendaha ugu weyn ee kulankan golaha guud ee qaramada midoobay looga hadlay shalay maxaa keenay iyo maanta bismillaahi caasho aad ayaan u mahadsan tahay sida aan filayana la socotid wuxuu shirkani daba joogaa shir 5 bilood ka hor Istanbul lagu yeeshay oo World Humanitarian Summit ahaa kana arrinta qaxootiga iyo tahriibayaasha ayaa looga hadlayay delegation oo wasiirka arrimaha dibadda hogaaminayay ayaa Soomaaliya ku matalayay shalay oo dhan waxa head of states madaxda iyo madaxweynaha dawladuhu ka hadlayeen oo dawladda Soomaaliyeedna wasiirkeedu ka hadlay ilaa 3 qaybood arrinta qaxootiga Soomaaliyeed iyo ka hadalkeeda waxayna salka ku haysaa dhibaatadan inay noqoto dhibaato caalami ah global ah si samafal ama degdeg oo emergency-na aysan ahayn wax lagu xallin karo dhinaca horumarka ama development-ga waxa la yiraahdaa dhinaca humanitarian-ka emergency-ga sidii loo kulmin lahaa oo xaaladahan qaxootiga ay u noqon lahaayeen mid la cirib tiro ma sahlana dhibaatada adduunkana waad la socotaa siday ugu soo korortay qaxootiga Soomaaliyeed kan Yemen arrimaha Turkiga Kenya xaaladahoodu waxay ahayd mid madax kasta iyo madaxweyne kasta ee meesha istaaga oo carab ku dhufanayay waxaad Axmed Daahir ka warantaa shalay iyo maanta kulanka qaxootiga looga hadlayay dabcan qaxootiga ugu badan ee hadda caalamka ama dhagaha caalamka indhaha caalamka ay ku jeedaan waa qaxootiga ka imaanaya dalka Syria ee dagaalada ku soo barakacaya waxaa soo xigay iyagana qaxootiga dalka Suudaan Soomaaliya sidee looga soo hadal qaaday iyaga xaqiiqan Soomaaliya ma dhicin nin qof madaxweyne oo hadla oo aan xusin waxay noqotay waliba si gaar ah dhacdooyinkii u dambeeyay ee baryahan soo cusbanaanayay ee ahayd Dadaab waa la xirayaa dawladda Kenya dadka inay ka baxaan bay rabtaa in carabka lagu dhifto in la xaqiijiyo xuquuqda iyo dignity-ga iyo sharafta dadka qaxootiga aysan noqon kuwa la khasba marka ama anaga ha noqoto oo aan lahanahay wasiirkan arrimaha dibadda uu xusay dadkeena waa rabnaa inay noo soo noqdaan ama si caama dhibaatada qaxootigu dhaqaale ahaan bulsho ahaan nabadgelyo ahaan way saamaysay dawladaha ay u soo qaxayaan ha noqoto mid global loo soo wada jeesto wax laga qabto sidaas ay ahayd tusaale kale carabkaad ku dhufatay xerada qaxootiga ugu weyn ee Soomaalida ay ku jirto waa Dadaab dalka Kenya ku taala waxa marar badan la soo hadal qaaday in la xirayo waxa jira dad fara badan oo Soomaali ah oo wali sii cararaya oo dalkii ka baxaya oo badaha ku dhamaanaya waxa tahay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka maxaa dadka u haysaan dhibaatadan hay'ad kaligeed ma aha mid wax ka qaban karto laakiin haddaan qorshaha iyo qaabka ay soo marto wax kaaga taabto 15 bishan hadda Nairobi baa shir lagu yeeshay heshiiskii 3 geesoodka ee la daba joogo dawladda Soomaaliyeed dawladda Kenya iyo hay'adda UNHCR-ka halkan shalana xataa High Commissioner-ka hay'adda qaxootiga iyo ku-xigeenkeedaba kulan kooban ayaan la yeelanay waxaana soo socda October shir kale ee ay tahay in Tripartite Commission-ka wax la yiraahdo guddiga maamul arrimaha qaxootiga ay yeelan doonaan mar kale kulligood macnaheedu waxay tahay hal la isku diyaariyo dadkan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ayaga raba Dadaab waxa ku sugan wali dad isqoray ee u socda Soomaaliya ee raba in la si gacan siiyo si bixidooda kaliya iska dhaaf in la yiraahdo waa la xoogayaa waa la bixinayaa way jirtaa hal dhibaato oo aad ay dawladda Soomaaliyeed maamul goboleedyada sida Jubbaland oo aad ugu badan iswa oo koonfur galbeed ugu badan aad uga hadleen war dadka la soo bixinaya waxa loo qabto yaan la soo dirin dad farab maran waxa dhacday dad yimid oo Dadaab ka yimid oo xoriyihii barakacayaasha ku biray kuwa barakacayaal kaama gaarkood samaystay marka arrintan war dadka waxa lala qabto waa mid jirta arrintan Kenya in loo mahad celinayo 20 sano iyo 25 sano in ka badan ay qaxootiga haysana waa in jirta marka lamana diidin lamana xoogayo
arrintaas waa wax communique-gana ka soo baxa anaguna hadda hadalladana ku jirtay dadkan dadweynuhu gacan ha nagu siiyo wax mashaariic ah ee lala qaban karo mashaariic dhowr oo far badan ayaan isku dubaridnay oo aan rabno inaan bandhigno hadda cidii akhusisay si wax loo qaban karna hadalka soo socdo wasiirkan arrimaha dibadda iyo shalay kulamadii aan galnana ku wada jiray axmed waxaad ka warantaa intaanan ka soo noqon gudaha dalka Soomaaliya waxaa jiray qaxooti isu qoray oo volunteers ahaa inay ku soo noqdaan gudaha dalka Soomaaliya xiriyaha qaxootiga ka soo baxay oo meel dhexe lagu joojiyay oo maamulada qaar ay joojiyeen oo loo diiday inay gudihii dalka galaan madaxdiina ay sheegayso in dadkaasi ay farmaran yihiin oo intay xire ka soo baxeen haddana inay xire kala galaan ay macquul tahay marka maxaa keenaya in qof xire qaxooti oo dal shisheeye ku yaalla ka soo baxay inuu haddana xire kala galo oo aan loo ogolaan inuu dalkiisii ahaa oo dhinac ka raaco meeshuu doona ka dego horta annaga ma hayno dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada midna weliba sida Jubbaland loo xuso cid dhahday qof Soomaaliya kuma soo noqon kara dalkiisa si rasmi ma jirto arrinta cabashada waxa waaye war dadkan la soo celinayo adduunyadu lacag badan ayaa magacooda lagu qaatay wixii dadka la siiyo dacwadu waa meeshaas macnaheedu marka ma aha ma ogolin dadkii aad baa looga hadlay maamulka Jubbaland waa lala hadlay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay UNHCR-ka iyo kulamo badan baa yeelnay Tripartite Commission kuwana ku sheegay propaganda ayay aad ugu badan tahay arrintani laakiin dhabta ah inaan dadka wixii la siin ay mudnaayeen way jirtaa isku soo duuduub nolosha dadku in badanna waan sheegnaa ay ku haystaan dhadhaab maxaa u diiday inay xataa barakaco oo waxay rabaan noqdeen dadka Soomaalida ay wax la qaybsadaan 12 milyan oo Soomaaliya gudaha ku jira dadkaas bay kamid yihiin ma noloshooda qaxooti bay ku dhamaysan lahaayeen waxaad ii sheegtaa marka dadka qaxootiga soo noqonaya xiriyaha qaxootiga ka soo noqonaya adinka qaabkee rabtaa inay wajahdaan ma in xiro kale ay galaan oo barakacyaala mise in la dagaameeyo dadkii oo dib u dejin loo sameeyo ilaa dalkoodii bay ku soo noqonayaan may wax la yiraahdo xeraha laga soo baxo xeraha la gala ma jirto dadka maalin kasta magaalada Muqdisho waxaa yimaada asbuuc kasta 3 ilaa 4 diyaaradood oo 300 oo qof in ka badan wada way jiraan dadkaas dad ka mid ah oo xiriyo barakacyaal ama nolol xumo dhibaato saamaysa waliba sida gaarka waxbarashada ugu daran ilmahooda qorshaha ah hadda dadka soo baxaya waxa heshiisku yahay package initially wax la yiraahdo oo dadka waxay markaas 3 bilood oo kale cunto ay heli karaan ku noolaan karaan sahadeedu safar diyaarad iyo baawur mid ka rabto ha noqotee in la siiyo laakiin mashaariicda hadda aan ku fakarayno aan soo bandhignay oo aan wadana waxa kamid ah arrintan dadkan Soomaaliya waqtiga abaarey dhacay 74 waa la ogaa sablaali kuntuwaarey iyo dajuuma iyo kulli waxa lagu dajiyay dadka fikradda adduunka soo baxday baa waxay ahayd dadka in tuulooyin loo sameeyo xiriir loo sameeyo wax fiican ma aha meel badan baa adduunka inta sanbaladaas laga sameeyay san shaqayn laakiin dadka Soomaaliya dhaqan ahaan waa wax yaqaanaan oo ay qaban karaan hana loo sameeyo magaalooyinkaas oo ay ku jirto dadka shelter guriyo in loo sameeyo ugu yaraan 2 ah xoolo yar iyo dhul yar oo wax ku samaysan karaan dawladana waxay noloshooda ku bilaabaan dawladda Soomaaliyeedna waxay ballan qaaday meel kasta ha noqoto dhulkii Kismaayo tagna Baydhabo tagna wada ayagu Kenyaanka iyo UNHCR-ka inala wada socdeen dhulkii labada maamul iyo xamarba meel sheerta noqotay dib kama jiro dhul dadkaas loo dagaameeyo in dawladda diyaar la tahay nabadgelyada si caam ah dadkay wax la qabaan meel nabadgelyadooda macquul tahay ayagana inay noqoto meeshaasi dawladda Soomaaliya u sameyn karta laakiin budget ayaga guri ugu dhisma haysato adduunyadu nagala kaalmeeyo budgetkaas waa ta marka ugu dambeyntii Axmed Daahir kulanka 2 maalin ayuu socdaa arrimaha qaxootiga looga hadlayay maxaa dalkii kula noqonaysaa ilaa waa la sugayaa arrimo qaxootin waa laga hadlayay qaxooti badan Soomaaliya way leedahay maxaa la noqonaysaan qodobka ugu weyn oo hadalka su'aashaada hore ku jirtana waxay ahayd inaan qaxootigan faraha badan oo adduunka harqay ee Yurub u socdo oo Syriyaanka u badan aan lala iloobin qaxootigan muddada dheer sidii Falastiin oo kale oo dhadhaab ku sugan laakiin ajandaha iyo indhaha caalamka ay ku soo noqoto qaxootiga ummadda Soomaaliyeed sida wax lagu qaban lahaa si ay dalkooda ugu noqdeen waa qodobka koowaad qodobka labaad arrintani wayba ka baxday hadda wax gobol iyo 2 dal oo dalka qaxootiga tagay iyo dalka ay u noqonayaan kaliya arrin caalami bay noqotay qofba dal walba danihiisa ka fiirsada nabadgelyada qaarkood badan ka fiiriyaan marka dawladda Soomaaliyeed inaysan ka marnaan oo ay ra'yigeedii goobjoog ka noqoto meesha arrimahaas looga hadlayo waa arrin aad u weyn oo hore aan u dhici jirin intii xilligan dawladnimada Soomaaliyeed aad soo kabanayso la gaaray aad baad u mahadsan tahay